kulanti qaawan daawadayaal ku soo dhawaada qarasta TV fodoga baratan aad la xeeqsan maantana idinkaga imaanaysa meelaan soo ogaa doona isla markaana dib ka shaaci doona taariikhdu waxay ku beegan tahay sanada 2050 waa maalmo 40 ay tahay la saadaaliyo talaada la sugayo kuna soo dhawaada wararka qarasta kuwooda ugu walwaalan madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Giriid ayaa muddo 2 sano ku darsaday muddada xilhayntiisa madaxweynaha Muuse Giriid ayaa hore u soo noqday madaxweynaha Koonfur Galbeed Itoobiya halka 2 sano xilliga ay u dhamaatay la rajay doono inuu noqdo gudoomiye ku xigeenka caasimadda gobolka Taiwan ee Muqdisho madaxa qasqaska iyo iscadaynta Cabdi Dhaanta ayaa ugu baaqay inay iscadeeyaan mas'uuliyiinta kale Axmed Madoobe Aadan Madoobe Yuusuf Hagar Dabageed iyo waliba Axmed Qoorqoor sarwaalka Khadiija Diiri ayaa noqday kan ugu caansan caalamka sida warkan inuu soo diray wariye Qadaroos sarwaalka Khadiija Diiri oo noqday kan ugu caansan dunida kadib markii dayma aan nuuceed hore loo arag ay kaga fakatay Sheekh Umul Sheekh Shantaay oo qarasta TV la hadlay ayaa sarwaalka Khadiija Diiri ku tilmaamay midka ugu qaalisan guud ahaan caalamka Ayub Carlo oo ah kan soo saaray sarwaalka Khadiija Diiri ayaa qarasta TV u sheegay inuu aad iyo aad ugu xun yahay hadalhaynta caalamka gilgisha ee sarwaalka Khadiija Diiri King Qadaroos qarasta TV gurceel Hindiya warkaad kala socoteen idaacadda qarasnata iyo kuugiye daawadayaal inta ku kulmi doona xilli kale oo qeyb daran waa wariyaha idaacadda qarasta oo ilaa sida iyo nabadgelyo